kusoo dhawaada Deal Sheekar waxaan insha Allah waxaan turjumi doonaa muuqaalkan English ayuu ku baxay qofku markuu halkaan imaado waxyaalo badan ayuu halkaa ka akhrisan karaa sida halkaas aad uga jeedaan newdealsheekar.com marka qofku soo galo masha Allah muuqaalkan hore weey halkan waxaad gelinaysaa emailkaada haddii aad soo samaysatay oo aad already soo samaysatay haddii laakiin ma aad email soo samaysan halkan uu kaa diidi doonaa oo wuxuu ku dhihi doonaa soo samayso haddii aad soo samayso hadda kan oo la sameeyey uu samaysan yahay insha Allah qeybahan oo dhan waxaa ku jira waad arkaysaan my wallet open store my wallet my store dhammaan waxyaalahan oo dhan waa qaybta hore ee Facebook camal marka qofku uu yimaado halkan ay uga jeedaan halkan waxay uga jeedaan marka aad click siisid qofka waxa uu ka dalban karaa ama geen karaa qaybta inuu lacag bixiyo waayo qof walba halkan markuu imaado uu xareysanayo KYC-ga ama uu dukaan samaysanayo waa inuu xareysto waa inuu xareeyo lacag 4 euro laga qaaday oo bixiyo marka sida 4 euro lagu bixin lahaa ayaan mareynaa insha Allah wadada xigta oo ah halka sida u jeedaan cashna qofku uu ku qori karaa dhinaca shirkadda OneCoin ee akoonadeeda marka la isticmaala qaybta cash account-kana wuu soo qabanaya sidoo kale wuxuu soo qabanaya wax la yiraahdo coin-ka sida halka u jeedaan waad baari kartaa laakiin sidoo kale 4 euro waxa lagu bixinayaa waxa isku xiran qaybta la yiraahdo PayPal halkan open store markaan yiraahdo halkaan imaanayna open store halkaan uu keenaya halkaas waad arkaysaan PayPal ku bixiyo leeyahay waa inaad PayPal leedahay 4 euro waxa loo bixinayaa waa security waxay isku xiraysaa account OneCoin aad ku lahayd iyo account-kaada PayPal marka halka imaanay halkan marka imaatid wadanka ayaad ka soo dooranaysaa wadanka ayaa la rabaa inaad ka soo dooratid halkaas sababtoo ah wadamada qaar waxaa laga yaabaa in halkaa laga waayo haddii wadanka laga helo wadanka ayaad kasoo dooranaysaa kadib waxaad sii diyaarsanaysaa dukumentigii aad isticmaali lahayd ee aad gelin lahayd dukumentiga aad gelinayso waa KYC approval ay kuu samaynaysaa waa in aad ka doorataa haddii uu yahay passportka ayaad ka dooranaysaa identity card hadduu yahay ama kaarka ID card loo yaqaanana kanaad ka dooranaysaa haddii aad isticmaalaysid waxaa la yiraahdaa driving lesson ee baabuurta lagu wada halkaas aad ka dooranaysaa kadib wadankii aad dooratay waxaan leenahay soco sidoo kale marka aad click siisid waxaa lagu dirayaa in passportkaada aad laga soo qaado desktopka computerkaada marka ha moogaani waa inuu diyaar ku ahaadaa desktop computerkaada waa inuu kuu saaran yahay kadibna wuu kuu soo qaadaa si automatic sidoo kale waxaad ku qaadi kartaa computerkaada aad ku qaadi kartaa haddii computerkaada sawir uu leeyahay laakiin waa inuu ahaadaa mid la arki kara sawirka sidoo kale sawir ayaad soo qaadaysaa wejigaada ayaa lagaa rabaa sida halkaan ku aragteen waa la baaraya marka hadda wuxuu sameynaya identification cardka aad gelisay inuu sax yahay iyo in kale iyo weliba sawirkii oo isla wataa halkan sidaad uga jeedaan identificationka inuu process garay waxay qaadanaysaa daqiiqado marka ha ka bixin waa inaad sugtaa ilaa uu ka dhameeyo halkan sida u jeedaan waxaa laga yaabaa daqiiqada inuu qaato kadibna uu kugu soo celiyo in badan waxa oo dadka aan u sameyn waa lagu soo celiyey waxaana laga yaabaa documentiga inuusan ahayn mid si fiican loo arki karo la akhrin karo waxaan waa automatic qalabka ayaa akhrinaya ma aha qaybtii sida one life oo kale dadka ay akhrinayeen documentigaada qof uu marka u fariisanaya marka kan waa si automatic ah haddii uu akhrin waayo wuu kugu soo celinaya marka iska hubi documentiga aad qaadayso iyo sawirkaad qaadaysaba mid waa inuu ahaadaa mid si fiican loo arko insha Allah iska hubi kadibna hadda halkaan saad u jeedaan waa loo soo ogolaaday successful adi laakiin fail hadduu ku dhaha waa lagugu soo celinaya failed markuu ku dhaha waa lagugu soo celinaya continuous dhama halkaan ayuu ku keenayaa marka aad soo diyaar garayso wax la dhihi jiray lacagtii waxaan soo bixi halkaan ayuu ku keenayaa marka aad soo bixiso lacagtii ahayd 4 euro iyo sidoo kale documentigaada saxda aad soo geliso ee lagu approve gareeyo wuxuu ku keenayaa halkii dukaanka aan ka furi lahayn qaybtan aad u jeedaan dukaamada sida halkaan u jeedaan way kala duwan yihiin la furaayo qaar baa free ah sida kan oo kale kuwan kalena waa lacag quality ahaan ay ku kala fiican yihiin
kambaniyaasha waaweyn ee rabo inay dhaqaalo badan ama wax badan iibiyaan waxay qaadan karaan kuwa lacagta ah wayna kala sarreeyaan ilaa 15 maxay ahayd 10 ilaa 5 euro midkaan ka dooranaynaa annaga sida ujeedaan 5 euro midka ayaan ka dooranay kadibna halkaan ugu keenaya halkaan markaad imaatid dukaankaadii ayaan bilaabaynaa inaan register garayno waxyaalihii kale hore usoo register garaynay waxay ahayd qaybtii ugu horreysay front page-ka loo yaqaano sida facebook kale adiga yeelan lahayd sawirkaadii waxaa qaybtii xigtay lacagta ayaan soo bixinay qaybta saddexaadna waxaan soo xareynay documentiga KYC-ga waxaana usoo gudubna qaybta ugu muhiimsan ee ah ganacsigaada inaad register garayso halkan waxaa lagaa doonayaa ganacsigaada in aad u samaysid magaca dukaankaada shirkadaada magaceeda waxyaalaha aad iibinayso jiha dukaan mobilada magaciisa iyo sidoo kale qaybtan hoose oo ah ciwaankii uu kula ahaan lahaa waxaad ogtihiin internetka marka la galo qofka waxaa laga yaabaa ganacsigiisa inuu leeyahay websitekaas magacuu leeyahay waa la sameeyey qof kale ma samaysan kara websitekaas marka dukaankaada magaciisa looga register gareeya halkan waa inaad ku samaysaa magaca dukaankaada kadib markaas waxaad leedahay raadi sidaa u jeedaan wuxuu ku leeyahay waxaa la dhahaa url available علشان بيجي أما مجال أدخل هان لهاد وصار هان واحد يلا مثلا هالكاس ده فقرا www.bilshaker.com waxa markaas aniga dukaankaada magaciisa uu noqdaa lagu raacinaya haddii dukaankaada uu yahay abadirbookshop.com ayuu kuu noqonaya marka halkaas waa bilshakerka shayga mar laga diiwaangeliyo qof kale ma qaadan kara magacaasi wuu diyaarsan yahay marka qaybtan waxaa la yidhaahdaa keywords ayaa la yidhaahdaa keywords ayaan ka dalbanayna sidoo kale magaca hore aad ku samaysan ka dhigi kartaa halkan waxaad ka dhigi kartaa waxyaalaha aad doonaysa dukaankaada inuu yahay tusaale ahaan haddii waxa aad iibinayso ay yihiin waxa la yidhaahdo buugagta qalabka xafiisyada waxyaalahaas waa haddii buug uu yahay waxaad iibinaysa waxaad leedahay waa buug haddii electronic wax ku saabsan aad iibinaysa electricity ama electronic aad leedahay haddii guri iyo jikooyinka iyo wax ku saabsan aad halkan sidaa uga jeedaan ayaad ka dooranaysaa marka doorashada adaa garanaysa wax kasta way ku jiraan search online ayuu ka doortay ninkan halkan aad ayay muhiim u tahay waxaa lagu leeyahay description waa inaad qeexdaa waxyaalaha dukaankaada aad ku iibinaysa waa maxay waa inaad kala qaadaa oo sheegtaa haddii tusaale ahaan aad iibinaysa mobilada waxaan iibiyaa mobilada kala duwan smartphone-ka ayaa kamid ah mobiladan iibiyo waxaa kamid ah samsung iphone waxaan iibiyaa sidoo kale maxay ahaydee jaajarada iyo wixii lamid waa inaad wixii qeexdaa ilaa waxaa lagaa rabaa 100 eray inaad ku qortid in gaarayso words ah inaad ku qortid waa lagaa rabaa halkaa sidoo kale halkan waxaa lagaa rabaa sawir inaad soo gelisid markaad description-ka dhamaysid halka customer waxaa rabtaa ka dhigan kartaa dhib malahan halkan marka waa inaad taaroos dhahdid markaad taaroos dhahdid muuqaalka uu yeelan doono dukaankaad sawirada aad soo diyaarisay ama fiidiyoyada aad soo diyaarisay ayaad gelinaysaa halkan sare halkan oo kale waxaad gelinaysaa ciwaankaada ama adresskaada ayaad gelinaysaa haddii adresyadaada hadda sweden oo kale haddaad arkin stockholm soo qabtay laakiin adiga adaa gashanaysa insha allah inta marka halkan markaan imaanay sidaad arkaysaan ciwaankaadaad gelinaysaa email adresskaada soo qabanaysaa sidoo kale waxaad gelinaysaa haddii aad leedahay website emailkaada website haddii aad lahayn waa ka gudbi kartaa qasabna inaad gelisid markaad halkan soo dhamaysid waa ciwaankii guud adresskaada adig tusaalaan haddii aad degan tahay xaafadda madiine ee magaalada muqdisho waxaad ku qoraysaa inaad degan tahay xaafadda madiine magaalada muqdisho ama gobolka banaadir xaafadda madiina balaa adaasi soconaysa inta marka aadan soo daabicin oo aad dhamaystirin waa inaad iska hubisaa wax kasta waa inay sax ahaadaan waayo halahan wixii aad qaladid hadhow dib looma qabeyn karo intaa markaad soo samaysid oo aan dhahnay abuur halkan ayuuna keena halkan markaad timaadid sida halka kore aad uga jeedaan haddii aad soo dooratay baakejyadii freega ahaa
hore ayaad u soconaysaa oo lagaagama baahna inaad lacag bixisid laakiin haddii aad soo dooratay baakejkii ahaa 5 euro halkaas ayaan tegi doonaa waxaan bixin doonaa lacagta sidaad arkaysaan markaan niri oo uu yiri ninkaan lacagta bixi waxaa la keenay inuu PayPal ku bixiyo waxaad ogaataan mar walba PayPal-ka ayaa muhiim ah Deal Shakar waxa uu la shaqeynayaa PayPal-ka lacagaha lagu bixinayo insha Allah marka PayPal-ka waa inuu register idin ahaada qof walba PayPal-kiisa waa inuu register gareeyaa sidoo kale storekaasi aad samaysatay continuous waa dhihi kartaa si aad maxay ahayd successful hadda marka lacagta la soo bixiyey hadda rabto waad canceli kartaa waxaad dhihi kartaa iga jeedi ma raba inaan lacag bixiyo marka halkan marka aad doonaysa inaad waxyaalihin kale o dhan waa soo dhameynay dukaankaada haddii uu leeyahay alaaba la diraa shipping method ayaa la yidhahdaa shipping methodkan aad ayuu muhiim u yahay qofka diraayo tusaalahaan qofka leh dukaan buugaagta lagu iibiyo oo doonaya dukaankaasi magaalooyinka ama tuulooyinka ama gobolada dhan inuu iibiyo u gudbiyo dadka soo dalbanayna oo u geeyo waxaa laga rabaa inuu samaysto wax la yidhaahdo shipping methodkaas ayaad insha Allah aan maraynaa marka ugu horeysa total waxaad samaynaysaa titlekii guud ee shippingkaada tusaale ahaan waa online free online oo kale ayuu yiri delivery time waxa la yidhaahdo waqtiga aad dadka waxooda u geynayso tusaale ahaan dukaankaada wuxuu ku yaalaa magaalada muqdisho si online ayaad u iibisaa waxaa kasoo dalbada gobolada sida gobolka bay ayaa lagaa soo dalbada baydhabo inta ay qaadan karto qofka alaabta inuu gaaro time ahaan delivery time waxa la dhaha waa inaad ku qortaa isku mid ma noqon karayso markaad baydhabo u diraysid iyo markaad u diraysid waxa la yidhaahdo marko way kala fog yihiin sababtoo ah marka waxaa laga yaabaa maalin gudaheeda inuu ku gaaro baydhabona 2 maalin kadib iyo qaata marka inaad qortid halkaad ku sheegtid delivery time marka aad gaarsiin karto tusaale ahaan waxaad oran kartaa wuxuu kuugu imaan karaa tusaale ahaan dadkii koray ka akhrisanaya waxa waa online wuxuu kuugu imaan karaa qalabkan ama shaygan aad dalbatay 2 maalmood gudahooda 3 maalmood gudahooda 6 maalmood gudahooda haddii wuxuu yeelan doonaa qofka marka alaabtiisa ay tahay alaab la dirayo waxaa lagu dhihi doonaa dooro region waxa la yidhaahdo inaad magaalo u dirayso inaad gobol u dirayso inaad xaafad u dirayso inaad wadan u dirayso intaba shippingka marka insha Allah kala dooranaa sida halkaas aad u jeedaan qoraalka halka ku qoran waxa u jeedaan shipping methodka waxaa laga rabaa qofka inuu manage gareeyo sheego wixiisana ay noqdaan wax ay ogyihiin dadka ka iibsanaysa online-ka marka ay soo galaan inay xadidan yihiin haddii uu yiraahdo shippingka alaabta shippingka ma geen karo dalka Ethiopia laakiin waxaan kuugu keeni karaa Kenya Djibouti iyo wadamada kale dariska ah waa inaad kusoo qaata cadaysaa gobolada waxyaabaha adiga aad iibiso ay gaari karin insha Allah iyo gobolada aad gaarayso ay alaabtaada gaarayso iyo inta maalmood ay ku gaari karto qofka markuu shippingka maxuu iska bixin karaa ilaan alaabtii marka loo diray qof Hargeysa degan iyo marka loo diray qof degan Baraw isku mid ma noqon karto qarashka wuu kala badanaya marka shipping method kaas ayaa loogu talagalay kullina ma aha alaabada asset la yiraahdo hantida muguuraanka uma baahno laakiin hantida alaabta la diraayo ayaa u baahan in la yiraahdo la isticmaalo shipping method hadda markaan soo dhameynay waxaan leenahay magaca productiga ama qalabkaad gadaysid sidoo kale wixii hadduu yahay waxa la cabirayo kilogramkiisa ama kg-giisa ama kilo inta uu yahay ayaad halkaas ku cadaynaysaa sidoo kale brownkaada magaciisa ama dukaanka adiga aad leedahay magaciisa ayaad sheegaysaa ku qoraysaa sidoo kale haddii buug aad iibinayso waxaa laga yaabaa inaad miisaankiisa lagu weydiino laakiin inta shay ama 2-3 noqdaan inaad halkan waxaa sidii hadda hoos qaybta hore aan kusoo qorno kale waxaad cadaynaysaa descriptionkan waxaa lagaa rabaa ilaa 100 eray oo kale inaad ku qortid oo cadaynayso sheeyaha aad iibisid waxyaalaha aad iibisid iyo sidoo kale inta aad iibinaysid haddii aad iibinaysid dhammaan qalabka electronic oo kale waa inaad sharaxdaa dhammaan qalabka electroniga ee aad iibinaysid haddii sidoo kale waxyaalaha aad halkaa ku qortay ay wax macquul aysan ahayn ama aanan la ogoleen oo mamnuuc ka ah waa lagugu soo celin doonaa dukaankaada marka aad u dirno registrationka ee la rabo in approval lagu soo siiyo
haddii wax sharciga ka hor imaado aad ku qorto ama uu xambaarsan yahay sida inaad iibisid xayawaanada jirkooda iyo wixii lamid ah waa lagugu soo celin doonaa dukaankaada lama ansixin doono sidoo kale halkan sawirka ayaad soo gelinaysaa waxaa xiga halkan ugu muhiimsan price tag price type ayaad qoraysaa type waxa waaye qaabka aad wax uu lacagta u bixinayso tusaale ahaan imisa coin ayaad ku qaadanaysaa boqolkiiba imisa lacagta euro ama dollar ayaad ku qaadanaysaa boqolkiiba adiga ayaa pricekaada sheegayo haddii aad doonayso shay kasta oo lagaa gato boqolkiiba 50 coin inaad ku qaadatid boqolkiiba 50 coin accountkaada ayaa lagugu soo diraa marka la iibsado haddii aad doonayso sidoo kale boqolkiiba 30 inaad ku qaadatid sidoo kale halka ayaad ka helaysaa laakiin waxaad ogataa waxaan waa online lacagta iyo kashka coinka iyo kashka labadaba si online ayaad u helaysaa automatic ay accountkaada kugu soo dhacaya oo wax isku xayiran ma jiro halkaa kore waxaad dhihi kartaa price info labadaba waa qaadanaya laakiin waa inaad sii kala sheegtaa boqolkiiba inteed qaadanaysaa lacagta euroga ah ama lacagta loo yaqaano dollarka iyo boqolkiiba intee coin ayaad qaadanaysaa waa inaad kartaa oo caddaysaa halkan markaad imaatid promotion waxa la dhahaad u samayn kartaa oo tusaale ahaan haddii qofka uu soo dalbado waxa waqti dheer ay qaadanayso tusaale ahaan bil qaadanayso kale wuu ka lacag yaraanaa shippingka markay noqoto qofka hal maalin gudahooda loogu geenaya waxyaala emergency ah iyo waxyaalo kala baxsan ayaa loo kala qaadaa hadda wadamadan yurub anaga aan deganahay marka aan dalbanayno tusaale ahaan onlineka markaan alaab ka dalbanayno waxaa lagu leeyahay ma doonaysa alaabta in 2 isbuuc ama isbuuc ay kugu imaato mise si caadi ah bil ayaad sugi kartaa haddii bil aad sugi karto lacagtaad bixinaysa way ka yar tahay shippingka markay noqoto tan isbuuca ama maalmaha aad bixinaysid waa emergency marka sidoo kale ayaa halkaan ku qoraysaa halkaan oo kale waad arkaysaa 30 casho ayaad ku qori kartaa iyo ka badan inta adiga ayaa garanaysa qof walba inta ku qaadan lahay dhammaan waxyaalahan oo dhan markaad saxdid aad si fiican usoo bubuuxisid ay diyaar ku yihiin inta aadan taglish dhihin aadan taglish garaynin ama aad creating dhihin ood abuurin dukaankaada waa inaad hubisaa waxyaalaha kaa qaldan maxaa yeele hadhow dib uma sixi kartid waa in ay noqdaan wax dhammaystiran oo sax ah si fiican aad u akrisay insha allah haddii aad tahay qofka dukaanka iskale taxadar badan ka sameeya dukaanka sameynaya mar haddii halkaan aad imaatid aan soo abuurnay kadibna aan dhahnay create wax dambe ma bedeli karna laakiin intaad create dhihin wasaan idin sheego inaad hubisaan muhiimadda waxay tahay steebyada la maraya inaad si fiican walaalayaal u buuxdaan si fiican u fahantaan dhowr steep ayaan soo maray sidaad ogtihiin steepka ugu horreeyey ee lagu abuuray qofka personalkiisa hore ama pageka ugu horreyso qaybta labaad oo ahayd waxaan soo bixinay lacagtii euroga ee 4 euro kadibna waxaan u gudubnay qaybtii aan xareynaynay KYC-da baasaboorkaada iyo sidoo kale sawirkaada waxaa noo xigay qaybtii dukaanka guud ee aan soo sharaxnay ee ahaa dukaankii inaan markaa abuurno dukaanka markaan abuurnay waxaan u imaanay qaybta ugu dambeysay oo ahayd shipping methodka inaan sameyno shipping method markaan sameynay waxaan imaanay dukaanka oo diyaarsan haddaba aan isla eegno dukaankaada saan ayuu ekaanayaa iyo qaabka adiga aad u jeceshahay wax walboo lasoo dhiga halkaas aad soo dhigtana dhammaan dadka qolka kugula jira ama friendska ah iyo weliba inta maxay aheeday wiilsha kala isticmaasho waxay arkayaan sawirkaada ugu horreeyay waxyaalihii aad maxay soo sharaxday ee faahfaahinta lahaa ama aan faahfaahinay ee aad iibinayso dukaankaada aad ku iibinayso dhammaana halkaas ayuu qofka ka heli karaa sidoo kale marka halkaan aad imaatid adiga beejkan hore ayaad leedahay sawirkaada ayaa kuu saaran dukaankaada halkaas ayuu ku yaalaa waxaad samayn kartaa waa sheer garayn kartaa facebook ayaad ku sheer garayn kartaa youtube ayaad ku sheer garayn kartaa twitterka iyo dhammaan qeybaha kale ee social mediaha ayaad ku sheer garayn kartaa ganacsigaada waana ka faa'iidaysan kartaa waxay ila tahay barnaamijkan maxay ahayd ili sheekar inuu idin noqonayo sidoo kale labadaba hadday noqon lahayd dhinaca advertisementiga ee xayeysiinta ah iyo sidoo kale maxay aheeday waxaadi oo aad iibsato faa'iidana aad ka hesho dukaan online ah awal waxaan naqaanay dukaan maxay aheeday offline ah laakiin dukaankaada online iyo offline
qaadada labadaba fursad ayuu u haystaa cashirkan dabcan wuxuu ahaa luuqadda English mid ku baxaayo anigana cod ayaan saaray waxaan ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed ee ku hadasha luuqadda Soomaaliga waxaana turjumay anigoo Xalwo Cali ah waan idin salaamayaa aad baad u mahadsantihiin walaalayaal mar kale